Asalaamu calaykum saaxiibayaal. Mar kale iyo qiso jacayl. Qisadan jacayl waxay la magac baxday Nacab Jacayl. Qisadan waxay ku saabsan tahay wiilkan iyo gabadhan oo si dhab ah isu jecel. Wiilkan kale waxa uu saaxiib leeyahay wiilkani, waana saaxiibo, laakiin markii uu ogaaday in saaxiibkii uu jecel yahay gabadh aad u qurux badan, wuxuu go'aan ku gaadhay inuu gabadha kala kaxayso ay isaga isu jeclaadaan. Haddaba qisada jacayl halkan ayay ka bilaabmi doontaa. Wiilku waa wiilkan. Wiilkan magaciisa waxaa la yiraahdaa Xasan. Waxa uu ka mid yahay dhalinyarta ku nool tuuladani. Wiilkan waa wiil aad u fiican oo daacad ah, qalbigiisuna aad u wanaagsan yahay, oon dhacdhaca aqoonin. Wiilkan hadda waxa uu iska socdaa dariiqa, wuxuuna doonayaa inuu iska aado xagga iyo suuqa. Waa wiil aad u nadaafad badan oo aad u xarraga badan. Wuxuuna la saaxiib yahay wiilkii kale aan hadda arkaynay. Wiilkan haddaba dariiqa hadda waa uu sii socdaa, wuxuuna doonayaa inuu xagga suuqa u kaco, laakiin waxa uu sikadiisa ula kulmi doonaa gabadh aad u qurux badan. Wiilkani wuxuu ku nool yahay tuuladani aadka u quruxda badan, isaga iyo hooyadii iyo aabihii oo keliya. Wiilkani wiilkii isagoo dariiqa sii socda ayaa waxa uu sikadiisa ula kulmi doonaa gabadhani. Gabadhan waa gabadh aad u qurux badan, sidoo kale aad u akhlaaqad badan oo dabeecad wanaagsan oo kula nool tuulada. Inkastoo hore isu aqoon, haddana sikadiisa ay isaga hor imanayaan. Gabadhani waa gabadh iyaduna aad iyo aad u dabeecad wanaagsan sida isaga oo kale, laakiin dhibaatadu waxay ka iman doontaa wiilka isaga la saaxiibka ah oo ku noqon doona nacab jacayl. Wiilkii wuxuu sikadiisa uga hor yimiday gabadhii meel aad u qurux badan weliba isagoo maraaya. Kadib gabadhii wuxuu ku yidhi, iska warran gabadhanay. Kadib gabadhii waxay ku tidhi, waan fiicanahay, laakiinse kuma garanaye maxaad islaamaysaa. Kadib wiilku wuxuu ku yidhi, waxay nahay gayaan, inaan isu salaamno waa muhiim. Waayo wuxuu yidhi, anigu hadda kuma aqaan, laakiin waxaad tahay gabadh aad u qurux badan runtii. Kadib waxay ku tidhi, waa okay, waad fiican tahay, laakiin waa dariiq meeshu. Kadib wuxuu ku yidhi, walaalo hadda waxaan taagannahay dariiq, waxaa laga yaabaa inaad ku dhowdahay gurigeennii, sidaa awgeed lambarkaaga i sii si aan kuula soo xiriiro. Inkastoo markii hore u diiday oo ay ku tiri dadna cid ma siiya lambarkayga, haddana waxa ay siisay wiilkani. Kabacdi wiilkii isagoo oo la yaaban gabadha aadka u quruxda badan ee uu la soo saaxiibay ayaa waxa uu soo fadhiistay meel bannaana. Kadibna waa uu fikirayaa, wuxuuna ku fikirayaa wixii uu odhan lahaa gabadhan marka uu garaaco, maadaamay gabadh aad u qurux badan ahayd. Wiilkani waxa uu hadda aad ula dhacsan yahay oo uu la yaaban yahay oo mar walba maskaxdiisa ku soo noqnoqonaysa gabadhii aadka u quruxda badnayd ee uu dariiqa kula kulmay. Wiilkani hadda waxa uu isu diyaarinayaa sida uu saaxiibadii ula samayn lahaa xidhiidh dhaba, maadaamay tahay gabadh aad u qurux badan, waxa uu doonayaa inuu la xidhiidho mar walba. Kadib wiilkii wuxuu yimiday meel bannaan ah oon cidi u dhoweyn. Kadib meeshan bannaan markuu yimiday wiilku wuxuu u go'aansaday inuu la hadlo saaxiibadiis. Hadda waxa uu la hadlayaa gabadhii uu maalintii dhaweyd bartay, ayaa uu la xidhiidhayaa si uu u ogaado xaaladdeeda iyo nolosheeda halka ay marayso. Maadaamay saaxiibad cusub tahay ama gabadh cusub oo hadda bartay, wax badan oo uu ku yidhaahdo ma garanayo, laakiin waa uu garaacay. Kadib moolkii way ka qabatay. Kadib wiilku wuxuu ku yidhi, inaad wanaagsan tahay rajaynayaa, anna aad baan u fiicanahay, ehel iyo qaraabo inaad wacantiin baan rajaynayaa. Kadibna halkaas ayuu sheekada uga sii waday oo gabadhii runtii wuxuu ugu sheekeeyey sheeko aad u fiican oo aad u qurux badan. Kadib wiilkii waxa uu u yeedhay saaxiibkiis oo ah midigtiisa, waxayna yihiin saaxiibo dhab ah, laakiin saaxiibtinimada iyo jacaylku meel ma wada galaan.
wiilkan waxa uu uga sheekeynayaa in uu la soo saaxiibay gabadh aad u qurux badan, aadna u dabeecad wanaagsan. Ninka saaxiibkii ayuu ku leeyahay, saaxiib, tala i sii, waxaan doonayaa gabadhaas inaan xidhiidh dheer la sameeyo, sidii aan ula samayn lahaa iyo waxaan odhan lahaa ii sheeg. Kadib wiilkani, ileen jacayl rag ma wadaagaane, waxa uu doonayaa durba oo damac ka galay inuu saaxiibadiis walxo ka helo. Kadib wiilkani hadda waxa uu duubaya hadalka uu wiilkani leeyahay, macnaha si fiican uu u dhageysanayaa. Wiilkan waxa uu u sheegayaa gabadha uu la saaxiibay inay tahay gabadh aad u akhlaaq badan oo aad u xishood badan oo kula nool magaaladooda. Kadib wiilkii markuu intaa u soo sheegay, waxa uu tagay xagga iyo tuulada. Kadibna waxa uu go'aan ku gaadhay inuu labadan qof kala fogeeyo si ay isaga ula saaxiibto hadday tahay gabadhu gabadh aad u qurux badan. Wiilkani oo ku noqonaya saaxiibkiis nacab ayaa hadda waxa uu isku diyaarinayaa wixii uu samayn lahaa ama wixii uu odhan lahaa si uu saaxiibadiis u arko. Kadib wiilkii halkan ayuu yimiday, waxaana u tilmaamay saaxiibkii oo ku yidhi, goobtaas ayaanu ku kulannay, halkaas ayaananu iskaga hor nimid, isagoo si saaxiibtinimo leh wax ugu sheegaya. Laakiin wiilkan wuxuu ku fikirayaa gabadha uu sheegayo wiilku ama saaxiibkaas oo ogow. Mar kale wiilkii iyo gabadha waxa ay ku kulmeen meel aad u qurux badan intuu u yeedhay wiilkii. Kadib meeshan ayuu soo fadhiisiyey saaxiibadiis si uu ula sheekaysto oo uu waqti ula qaato. Kabacdi saaxiibadiis si fiican ayay u wada sheekaysanayaan, si fiican ayayna isu fahmeen, inkastoo isu cusub yihiin, haddana qalbiyo isu wanaagsan ayay leeyihiin. Kadib halkan ayay si fiican ugu wada sheekaysanayaan wiilkii iyo gabadhii isbartay. Halkan ayay xog wanaagsan oo isbarasho ah ay ku wadaagayaan hadda. Wiilkan iyo gabadhan runtii aad ayay isaga heleen oo aad ayay isugu soo dhawaadeen. Kadib si fiican ay isku waraysteen, wax walbana waa iska waraysteen, dhan walbana waa iska waraysteen. Wiilkan iyo gabadhan runtii aad ayay isu jeclaadeen. Hadda gabadha waxay ku tidhi, ani xaafadii ayaan aadayaa oo waqtiga ayaa iga dhacaya ee waxaan doonayaa inaan aado xaafadii. Kadib wuxuu ku yidhi, aniga ayaa ku kaxaynaya ku gaarsiinaya guriga ee ina mari. Kabacdi gabadha waa kana uu soo kaxeeyey, waxa uuna kusii wadaa ilaa iyo gurigoodii. Gabadhan maadaama ay tahay gabadh aad u akhlaaq badan, waxaa khasaba inuu gabadha kaxeeyo oo u geeyo gurigoodii, maadaamayn ahayn gabadh meelaha soo socota ama lagu yaqaano bannaan socodka. Wiilkan oo gabadhan aad ula dhacsan oo aad iyo aad u jeclaaday ayaa waxa uu hadda kusii wadaa gurigoodii si ammaan ah. Gabadhan runtii wiilkan iyadna aad ayay uga heshay oo runtii damac weyn ayaa ka galay, maadaama noqday wiil aad u akhlaaq badan oo aad u xishood badan. Inkastoo saaxiibkii uu yahay nacabkii aynu garanayn, haddana weli ismay arag gabadhan wiilka kale ay isaga saaxiibka yihiin. Wiilkaasi wuxuu samayn doonaa been abuur aan caadi ahayn. Wiilka hadda waa kana maalin labaad waxa uu la hadlayaa saaxiibadiis meel jawi degan, wuxuuna ku leeyahay, ma fiican tahay oo ma wanaagsan tahay, xaaladaada iga warran. Si fiican ayaa u waraysanaya oo uu la sheekaysanaya saaxiibadiisa qaaliga ahayd ee uu maalinka dhaweyd bartay. Iyadna sidoo kale waqti ayay siisaa si ay ula hadasho oo waqti wanaagsan ayay la hadashaa sidoo kaleeto. Si fiican ayayna ula hadlaysaa gabadhani oo aad ayay u xishood badan tahay. Wiilkani waxa uu doonayaa inuu saaxiibadiis mustaqbal dheer ka yeesho si uu noloshiisa ula wadaago. Wiilkani runtii waa wiil aad u dabeecad wanaagsan. Wiilkii saaxiibka ahaa wuxuu ogaaday gabadha ay saaxiibka yihiin inta uu soo raadiyey. Kadibna halkan ayuu ugu yimid gabadhii, wuxuuna ku yidhi, ma taqaan ninka la yidhaahdo Xasan? Haa bay ku tidhi, waan garanayaa, waana saaxiibkayga cusub ee adiga maxaa ku baray? Kadib wuxuu ku yidhi, annaga ayaa saaxiiba wiilkaas oo aqoon aad u badan isku leh oo saaxiiba ah. Kadib waxay ku tidhi, haye maxaad ka wadaa? Kadib wuxuu ku yidhi, wiilkaas waxaan kugula talinayaa inaad iminka iskaga hadho, waayo waa wiil aad u akhlaaq badan, dumar hore fara badanna waa ay soo kala tageen, waana akhlaaq daran yahay, maaha qof lala saaxiibo, ayuu ku yidhi. Kadib gabadha waa ay yaabtay oo madaxa ayay qabsatay, waxayna tidhi, maxaad ka hadlaysaa? Wuxuu ku yidhi, run baan kuu sheegayaa oo waan kaa naxaya, adigu aqoon uma lihid, gabadh yar ayaa tahaye iskaga hadh wiilkaasi, ayuu ku yidhi. Kadib gabadhu aad u yaaban ayaa hareeraha intay eegtay ku tidhi, maxaa dhacay ee wiilkaasi aad ku aragtay? Anigu wax khalada kuma araga. Kadibna ila waa nin wiil doonaya inuu gabadhan isagu la saaxiibo oo uu saaxiibka ka dhigo nin xune.
wuxuu ku yidhi anigu waan kaa naxaya waxaan ahay qof aad u qalbi wanaagsan oo aad u dhaqan wanaagsan laakiin wiilkaasi waa uu ku khaldayaa been baanu kuu sheegayaa waayo annaga ayaa saaxiiba annaga ayaana aqoon badan isku leh wiilkaasi ayuu ku yidhi kadib waxay ku tidhi anigu kuma aamini karo waxa aad ka hadlaysid waayo wiilkaasi wax dhaqan xumo ah kuma aanan arag laakiin hadda waa aan soo ogaanayaa haddii arrinkaasi uu run noqoto waa khasab inaan ka fogaado ama aan ka hadho wiilkaasi inta uu ii khaldi lahaa kadib wiilkan oo hareeraha eegaya oo og inuu been sheegayo ayaa waxa uu ku yidhi aniga ayaa kuu huba oo arrinkaasi og ee iskaga hadh la soco qaybta labaad ee muuqaalkani halkan ayay kasii socon doontaa qaybta aadka u xamaasada badani